ururka al-shabaab ayaa soo bandhigay weerarada ay ka geystaan magaalada caasimadda Muqdisho sida lagu baahiyay warbaahinta taageerta al-shabaab. muuqaal fiideo oo soconaya 13 daqiiqo isla markaana al-shabaabka ay kaga turjumayeen qaabka ay u geystaan weerarada ka dhacaya magaalada Muqdisho ee gobolka Shabeellada Hoose oo dagaalamayaashooda ay geysanayeen ayaa waxa muuqaaladaasi ka soo muuqanayay toogasho ay ka geysanayaan bartamaha caasimadda Muqdisho iyo waliba sidoo kale qaraxyo ay la beegsadeen ciidamada Amisom xildhibaanay wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. al-shabaabku ayaa soo bandhigay sawirro ka turjumaya toogasho toos oo ay geysanayaan iyo waliba sidoo kale gaari ay qarax la beegsanayaan. waxa sidoo kale muuqaalada shabaabka ay soo bandhigeen kamid ahaa inay si toos u tooganayeen dad ay ku sheegeen inay kamid ahaayeen ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, saraakiil ciidan iyo askar. al-shabaabku waxa sidoo kale soo bandhigeen dhowr tuskar turjumaya qaabka ay toogashada u geystaan iyo waliba sidoo kale dad ku labisan daliiska ciidamada dawladda oo ay sheegeen inay ka tirsiin amniyaadkooda. al-shabaab ayaa sidoo kale tilmaamay in nin lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan uu beegsaday saraakiil iyo madax ka tirsan dawladda oo muuqaalka ka soo dhex muuqanayay. shabaabku ayaa sidoo kale soo bandhigay qaraxii lagu dilay xildhibaan Cabdulqaadir Baraf oo ahaa wasiir dawliyaha ammaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Cabdi Faarax Kabaweyne oo asigana ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. shabaabka ayaa soo bandhigay muuqaal ay ku sheegeen inuu ahaa gaariga xildhibaanada ay saarnaayeen oo mar qur ah qaraxa uu la kacay. si kastaba ha muuqaaladan ka turjumaya toogashada ee shabaabku ay soo bandhigeen ayaa noqonayay kuwii ugu horreeyay ee ay soo saaraan al-shabaab, inkastoo al-shabaab hore looga bartay inay soo bandhigi jireen codadka iyo waliba sidoo kale muuqaalo ka turjumaya dadkii weerarada geystay. cabdishakuur maxamed xasan, SABC TV, magaalada Muqdisho.